السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال meel kasta dadweynaha ka joogteen aad iyo aad baan salaamay ku soo dhawaada YouTube channel-kayga Faadimo Riyaad. intii hore noo la joogtay aad iyo aad baa u mahadsantiin intiina cusub ee nagu soo biiri doontaan waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada. barnaamijkan waa barnaamij gaar ah oo nagu talagalay dhalinyarada TikTokerska ee muddooyinkii ugu dambeeyay la kala ololeynayay xisbiyadeena qaranka Jamhuuriyadda Somaliland kulmiye iyo wadani baabka burco Salman Dheere Yaxya Taygar dhamaantiin saaxiibayal aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. halkan barnaamij aad iyo aad u qurux badan ma rajaynayna inuu ka soo baxo oo isxaal wareysiya oo kaftana shaqada dabadeed raggu halkan bay caawa isku hayaan dhowr su'aalood ayaan weydiin doonaa waana barnaamij aan ugu talagalay oo ka baxsan barnaamijyadeennii hore marka isha nagu haya nalana socdaan leena baabka burco aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa guul kadib jawgaaga ka war. بسم الله الرحمن الرحيم horta marka hore ma hadalno ilaahay baa iskala fahmay barlabaadkana kulli wada aragtayo joogu wax weeyaan waxaan ka soo baxday xaalado doorasho ololo adag waxyaabo badan doorasho isku sidkan ilaahay nabad buu nagu soo dhameeyay insha Allah billahi kariim waxaan rajeynayaa inuu ilaahay nabadda nagu soo wado. way Yaxya aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa adigu waxaad ahayd teamkii kulmiye dhexda xidhay ololo cajiiba taageerayaashaada la wadaagay jawgaaga ka waran doorashada kadib. والله فاضل ما يهرت أصحابته هذا قلت يوتيوب كساحب كتيرات بوصلة بنا برنامج كان سوى عشان تيجي قروح بلنا وكذا بهذا إلينا هل كنديرو أم صوق اللي وحوي تعب بدن ولا لا كامبين كذب هاد قول بنتاجنا واي أنا قول وحوي أنا قال الحكومة تحيل كوريشين يساء واي سوليد كار أورت أنا قلنا صارنا ده وحوي أمني قرنك doorashooyinka isku sidkana waxa weey waxa soo dhan iyo tartan inta soo tartanna noo dheeraa baa anaga waxa weey aan gacanta ku wadahaynay marka hadii doorashadii sanadada noogu dhawaatay guul baan taaganahay waad mahadsantahay waan ku soo noqonayaa Salman aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa bal jawgaaga ka waran doorashadii kadib maadaama ay naga soo dhamaadeen si nabad ku dhamaadeen aad iyo aad baad mahadsantahay YouTube-kaaga iyo dadka ku xidhan oo salaamaya runtii doorashadii si aad iyo aad u canbay noogu soo dhamaatay Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland halka ma ka salaamaya sidoo kale waxaan salaamay madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo si wanaagsan u qabtay doorashadii dhacday isku sidkanayd de dhamaantiin Somaliland maanta guul bay joogtaa halkan dheer kadib aad iyo aad wala soo laabtay oo aan gabdho iyo wiilal waxna ku dhiman rag way sar fadhiyaan ragna way sar fadhiyaan de waxaan sugnaa waxa weeye su'aaliyo la bilaabo waayahay Salmaanow horta bal su'aalaha kale weynoo dambeynayaan mikrofoonkan iga sii aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa adigu waadigii la soo ololeeyay xukuumadii hore ee madaxweyne Biixi waqti badan la soo qaatay haddana markii dabayaaqadii ugu dambeysay baa lagu arkay adoo yiri haddana waxaan u digo rutay taageerayaasheedii xisbiga wadani baan joogaa oo ah xisbiga imka talada dalka haya bal haddaynu dib ugu yaro noqono maxaa kugu kalifay yani inaad labada meelood isla daqiiqado isla bil gudaheed aad ku digo rutay aad ku soo haddana ka soo digo rutay horta waxa siyaasad baa leeyahay Faadimo way isbedbedeshaa markii anigu aan kulmiye ka tagayay ee aan tagayay wadani ka soo baxaya mid baa ogeyd ilaahay baa ogaa soo maaha siyaasaddu waxa weeye saaxiib joogta ama leewaji joogta bay leedahay soo maad garan markaa siyaasaddu baa isbedeshay oo la oran karaa anigu isma bedelan anigu qofkaygii baan ahay guushii oo barka hilaacday baan arkay mar kaliya dee waxay noqotay inaan guusha soo raaco oo sidaa markaan ka mid noqdo xisbigaygii hore aan ka mid ahaa ee wadani weliba xilli adag iyadoo 2 bilood ka hadhay iyadoo oo ay halkan xukuumadii tahay aan joogayo ay hadii de ay lacag tahay hadii ay tahay de xukuumadda garanaysa wadankii haysato oo de amniga iyadoo haysata waa la oran karaa de 80% way badan karaysaa iyadoo intaas oo dhan aan anigu joogay ayaan riskiga u bareeray waan guuleystay maanta waxaan taaganahay guul de kulli siyaasaduna way isbedbedeshaa laakiin qofku isma bedelo أنا مركز ما بدلين دي سياسة اسمه. بابك برعاه هستا وحنا لنا هاي مركز سليمان إذا كنت سنقضي هالمرة سقو
asxaabteena kale ama qaybta kale xisbiga wadan ee kulmiye la soo ololeynaya isla markii uu ku soo biiray bal halka adiga maxaa kaaga baxay de kulli horta wallahi salawaan de horta waxaan kamid ahaa dhalinyarada isku tiktokers ka nahay way kulli de saabeyn aadana ka soo qaatay safarkii madaxweynaha hore jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ma horeysay weeriyada lagu xasta kamid ah madaxweynuhu waa carraya Soomaaliland waa carraysa de kulli salawaan waxaan mar hore kala isugu ordayay noo yimi qoyarna wuu socday markii dambe oo nala jaan qaaday markii way ma laga yaabaa talo Salman Dheere inuu meel kale ka digirigto maadaama uu iska yahay dadka guusha raaca gulwadaynta aadkiyad ku jecel ma dumarka guul hadda aragtid dumarka aad u raacraacay anigu horte haddii ay noqoto madaxweyne tiktokerkii horeeyay raacay ama markii la bilaabay tiktokeriyada Soomaaliland in lagu daro kuwii ugu horeeyay baan ku jiray Cabdiraxmaan Cirro markuu soo baxayna kuwii ugu horeeyay la soo baxay baan ku jiray marka wala dhalatay ha marka wax la oran karaa de anagii madaxweynaha xidhiidho fara badan baa nagala dhaxeeyay na ogaadade markastana mucaaradnimada waa in la ogaado mucaarad lama noqon karo maxaafidnimada waa in la ogaado qolada mucaaradkan waxaan leeyahay 7 sano ma soo manaan karaysaane maxaafidnimada ku soo dhawaada anaga soo dhaweynayna bal yaxay soo dhaweynayna bal markii uu Salman ka soo baxay teamkiini tiktokerska ahaa madaxweynaha raacayay oo idin la ololeynayay bal jawiga aan dib ugu noqono horta saaxiibka Salman oo salaamaya way ninka ragga intiisa la sheegay ninka Salman campaign-kii labada dhinacba xaafid iyo mucaaradba ragii ugu saameynta badnaa buu kamid ahaa way hadaan anagu muxaafid ahayn ninkii u horeeyay ee safarka madaxweynaha raaca ayuu haayo waddu noo furay anaga laftarkeeyo ninka ragga intiisa la sheegay way laakiin gadaal waxaan ku ogaanay kullu shay yarjicu ila aslihi baa leeyahay way ninkii marka hore waxa weeye mucaaradad buu ku ogeyno xisbigeega kulmiye isagoo aasayo oo ma garanaysaa ayuu la joogo waa ka dhamaatayda haysa ayuu noo yimid way marka waxaan malaynaya ninka inuu dhiig joojin noo soo tago way markii aanu dhiig joojinayna ninkani waxa weeye asalkiisii dib ugu noqday oo mucaaradadiisii dib u bilaabay way marka waxa la islaamaano inaad mowqif yeelataa qofnimadaada u fiicantay waxa weeye marna hanaasin marna dhiig joojin noo soo doonayno hal meel aan kugu soo hagaagno way yaxay adaa ku haystay su'aal baan doonaya halka inaan ka soo bilaabo sax tiktokersku imka fursad aad iyo aad u fiican bay heleen ila heer madaxweynaha isgaadhaan oo iyagii lala heshiiyo oo qolaba qolo ka haysato oo yacni dhiil lagula heshiiyo oo qolaba qolo la shaqayso marka shaqada laga hadlayo fursad necooya bay tiktok siisay dhalinyarada baad isleedahay wallaahi new platformkan tiktok waxa weeye dadkeena inta waaweynima fahansanaa weliba qolyaheena siyaasiyiinta iyagu Facebook iyo meelahaasun bay dama garanaysa la haystaan laakiin markii aan anagu soo baxnay ee safarada raacnay ee aanu dadka waxa weeye dee u soo gudbinay safaradii mucaaradka iyo muxaafadkaba aad iyo aad markaasay dareemeen in meeshan dadna joogaan meel saameyn lana ay tahay markaa waxaan u malaynayaa tiktok haddaan anagu dhalinyarada isticmaashanahay markii horena lama aqoon si fiican dee inaan dad saameyn la oo wax bedeli karo wax soo gudbin kara nahay looma haysan aad iyo laakiin hadda dadku way fahmeen aad bay u fahmeen way fursadayna siisay waa platform haddii aan ka mahad sheeganayno aad baan mahad sheeganayna way bal baabka ayaan su-aasha isagana bal fikirkiisa aynu eegaynaa su-aashaas bal iyadana bal kusoo dhawo bal platformkan tiktok uu diyaariyay dhalinyaradii fursadan u siiyey haddaynu siyaaro dul istaagno horta faadimo waxa weeyaan maxay tole horta maalin walba update baa la gelaya aad iyo maalin walba waxbay dadku baranaya way de kulli waxa weeyaan tiktok aalada tiktok de hore maxay tolay dadku waxu yaqaan bariga hore de meel ciyaalo la iskaga xaraabaysto laakiin imka waxaad arkaysaa wajiyo badan ayaa to siyaasiyiin aad u badan oo ku soo qulqulaysa arkaysaa hadday noqoto xildhibaano hadday noqoto wasiiro hadday noqoto adigu madaxweynayaal tiktok ku soo qulqulay arkaysaa oo de ayaamo dhow tolo xafranaya Trump baa furanayo madaxweynaha imka Mareykanka ku guuleystay madaxweynaha imka dalka haysta Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa dhow doon furay oo
وكل ده واحد لو كرا مقرأسا مدعوينك كستم كم عتيك توقف فتو قوليسني هاي والله كان قاضي ترابنو قوليستي ها ترابنو قوليستي أنا قوليستي بركارت وحويان عالدن تيك توك qof walba horta waa sidoo ku joogo aadiye wada dhalinyarada qaar baa jacayl ku jooga aadiye qaar baa inay qadiidooda ku soo gudbiyaan ku jooga qaar baa inay maxay ahayd talo jiribkooda hoos ku baraarujiyaan ku joogo te qaar baa qoranaya anaga reerkaygu de siyaasi ma laho qabqabla ma laho ma garanaysa meesha horta qof walba waa sidoo ku joogo laakiin TikTok dhalinyarada intii sida wanaagsan u isticmaalisay fursad wanaagsan bay ku haystaan madaxa dalkana waxaan kula talin lahaa dhalinyaradu yaan noqonin jaro maalinta ololaha kaliya loo baahdo inteeda joogta baraha bulshada halala shaqeeyo sababtoo ah wada ogtahay TikTok dhaqaale badan laga ma sameeyo oo dhalinyarada qaar baa jira TikTok soo furtay waligood baan dhaqaale ka sameeyo marka madaxda halka waxa ugu gudbin lahaa inaanay noqon dhalinyaradu jarada maalinta kursiga la fuulayo loo sii socdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya hadda talada haya Cabdi Cabdullaahi kulan uga badan soo shaqeynana xoran lahaa kii kugu mucaarad hayo kii kugu maxaa iyo kii ku taageersanaaba dhalinyarada TikTok istibaasho maanta insha Allah bidilaahi karim waxaan rajeynayaa inuu gacan bixin siin doono kana qayb qaadan doonaan sidii ula shaqeeyay sidii marka hore anagu wala soo shaqeynay ilaa imka Yaxya Magarasa xukuumadda hore la shaqeeyay aan isaga laftiisa lagu eegin xukuumadda hore la socday la shaqeeyay dhammaan TikTokers-ka Soomaaliya Salaaman aad su'aasha intaana ka bixin bal ku soo dhawow aad iyo aad baan ugu dhawahay su'aasha haddii aan ka jawaabo horta marka hore TikTok waxa loo yaqaanay meel ay dad qaaqaawan iyo dad waalwaalan joogaan aad iyo aad oo dadka waaweyn aad u midaawan jireen macal qofka markii hore moolkiisa ma soo dejisan jirin laakiin hadda imika waa la fahmay oo qof waliba uu fahmayo maanta waxa la oran karaa waa aalada kaliya ama ugu daawashada badan laha ama wax bedesha doorashada Soomaaliland maanta dhacday run ahaantii waa doorashada Soomaaliyeed oo dhan ugu saameynta badan leh saameynta waxa uu yeelana waa TikTok-ta iyo de madaxweynihii ordaya musharaxiyo 7 suul wata isna la socda waxaan haddana madaxweynaha dadkii marka reer xamarka iyagu marka hore hashan naga badnaa ayaa haddana inana doorashada iskaga dhex qabanay meeshii oo ka dhex adeeganay marka application-kaasi waa application aad u wacan qof waliba sida uu isticmaalo si saaxiibka baab ku sheegay ayuu isticmaalayaa qofkii jaas soo doontay uu ka helayaa kii kalena uu ka helayaa kii daaqad inuu fulo soo doontay waa ka helayaa kii wax kala rabana waa ka helayaa aad iyo waa meesha dad ugu dhinacyada badan waa meherda aad ka weyn aad iyo samaad garan marka TikTok waxa la yahay wax walba haya waayahay Salaaman intaan ka bixin waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo safaradii kala duwanaad gashay labada dhinacaha maxaad ka baratay waxyaabihii kugu la yaabka badnaa ama dhacdadii ugu la yaabka badnaad ka xasuustid ama waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee ka soo maray bal adigoo naga dabageynay wallahi horta wax leeyahay inaan dhul marin dhaayo ma leh dooro safarka waxaan anu ka faa'iiday meel kasta Soomaaliland ku taal oo soo marnay dee dhul balaarsi iyo inaan dhulka arkay iyo inaan meelaha aan u leeyahay barto ee Soomaaliland ka mid ah meel kastaba cirif ilaa ka cirif waanu gaadhnay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland run haddii la sheego shakhsi ahaan waa madaxweyne wadankana wax badan soo qabtay kii hore la socotay mise kan imka ma musabbixide kii hore waa madaxweyne aad shakhsi ahaan aad u wacan marka meelaha soo wada marnay oo dhan waxyaabihii la yaabka lahaa ee safarkii madaxweynaha ee galbeedka aad la kulanteen horta galbeedka miyaa aad iyo aad dee galbeedka madaxweynuhu cid kasta uu la kulmayayba aad iyo haddii uu curyaan yahay iyo haddii caroolo yahay iyo haddii uu adigu yani waxyaabihii ku soo jiitay kuguna qosolka badnaa ee yani safaradii aad inteed ku jirtay safarada aad la kulanteen horta wallaahi aniga waxay ugu qosol badnaa maalintii madaxweynuhu booqday uu tegay Qorlugud madaxweynaha hore jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan tagnay ciidanka oo fadhiya ayaan tagnay Qorlugud in dooro u jirto halkii uu kaga jiray dhufayska markii madaxweyne arkeen marka hore madaxweynuhu inuu tagay uma sheegin madaxweynaha waxa la yeegan bis kaga jiraan habe iska tagin halkan iska joog baa lagu yimay uu diiday madaxweynuhu wuxuu inaan soo arkaan rabaa ciidanka militariga markuu u tagay
qof walba isagoo bamba iyo qori wato ku saacar mudane madaxweyne soo dhawow marka madaxweyne iskaafkiisii macluumaad sii daayeen iyo isagoo bambooyinkii iyo dadkii qoriyay wata madaxweyne soo dhawow xagga u ridbay macalka xagga u ridbay macalka yahay in yar bay jirtaa marka run ahaantii waxay cadeynaysaa yani waxay cadeynaysaa in ciidankii iyo madaxweynihii ay si fiican isula xiriireen oo dee waddankiina nabad yahay aad iyo marka wallahi waxyaabahaas noogu la yaab badnaa iminkana waa alxamdulilah waa wax lagu mahadnaqo Somaliland doorasho nabada ka dhacday Somaliland doorasho aan hal qof xariiq gaadha ka dhacday aan ka dhicin run ahaantii cadow fara badan baynu leenahay qof walba ishu inagu hayo wax islaha dagaal suuqa ayaa dhacay ama meesha la isku leenayaa islaha laakiin aad wanaagsan baa ka dhacay taana sababteeda musabix baa lahaa taariikhdii diiwaankana way gali doontaa insha Allah doorashadiisa saarnayd sidoo kale hadalkiisina waan bogaaleynaa si wacan buu hadlay cadowga Somaliland uu ka nixiyay aad iyo inta wax ka dambeeyay saaxiibadii baabka nin meelo badan soo maray baa tahay adigu de halkii aad ka bilowday un baad joogtay Salebaan laakiin labada safar ee soo galeen baan ku lahaa waxyaabihii kugu la yaab badnaa adigu maxaad ka baratay intii aad safarka la socotay haday way aragnimo tahay haday waxyaabo yani de la yaab loo oo soo maray ay tahay intii safarkaas ku socotay maadaama meelo badan martay way Somaliland wada marteen horta waxa weeyaan wasaas faad bay sheegto anuu ku leeyahay sida Salebaan harka hadba dhinaca culimo wareegay oo baxay tolay anugu de madaxweynaha hadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cigaal ayaan anugu la socday bilow ilaa dhamaad oo maxay ahayd tolay oo anugu aan siyaasad ahaan iyo falsafadaha soo wada aan ku qanacsanaa waan marnaba aanu reegay isbedelin imagana aan kula socdaa wax dambe iman doono mooyaan insha Allah horta marka waxa weeyaan Faadumo horta dhul badan baan maray oo bariya galbeed bale anugu bariya galbeed madaxweynaha maalinka ma hadhin aad iyo aad bariya galbeed horta dhul badan baan maray waxaan horta ku xasuusto horta in dad goba safarka aan ku barano meel walaan tagnaba aan dad goba ugu tageynay haday galbeed tahay haday bari tahayba aad iyo aad haddii la maxaad ku xasuusanaysaa kule dhulkii aan marayo oo magaalooyinka qaar magacooda khaldiyo marka xariirado kale la xariirado marka way aragnimo fiican baa kule haayo waxa la rog socodka u diro dumar daayo kule waxyaabo badan aduu dhulkaas laakiin de wax kale oo nagu horiyay ama caqabad nagu hortay ma jira alxamdulillah rabbil alamin waayahay bulshadu maadaama ay kugu xidhnayd oo ahayd baabka burco yani danin TikTok ta wuxuu doonaba ku joogay bulshadiisa wax la wadaagay ku xidhnaayeen mar allaaliye markaad xisbi ka soo dhex muuqatay bulshadii kugu xidhnayd yani sideebaad maxaa kaaga soo noqday horta Faadumo ay wad iska ogtahay dadkan inta badan waxa iskaga jira seeflabo badan oo magaranaysa maxay tolay aan wixii faahsanayn baa ku jira ama hab kala markiiba waxa soo gudbinayso arkaya maxay tolay waxaan ogeeyaan horta xisbiyadu waa saddex waxaana saddexda looga dhigay oo inuu qof walba ku reegiis ka dhaxarka uu raaco marka horta bulshadu de qaarna way ku dhaliilayaan qaarna way ku bogaadinayaan oo inta isku siyaasadda tiin way ku bogaadinayaan inta kala siyaasadda tiin way ku dhaliilayaan laakiin kulli baan ugu xaban huwa marka hore inaan la dhaliilaynin inaanu nin bahaydii oo qof walba duu qof ku dhaliili waayay isma dareemaysid qof jira tahay oo dhaliisho mar walba ay yara muhiimta moogtay oo dadka imka qaar baad marka ka soo baxda macal koranaya oo de qaarna adigu way ku istaageen qaarna xaqonay muxuu ahaday qofkan marka adigu wuxuu ba dareemaysaa qofnimadaada duniyo kulli marka wallahi waa iska adigu dadku kulli jiya badan waa la koran laakiin alxamdulillah waa ka tagan dadku si kasta noo qaataan oo ku wadana marka horeba dadka naga soo waana dadka eegayday yaxan duniyaan markan doorashadii dhacday yaxyow maxaa laga bartay baad isleedahay dadka reer Somaliland maxay ka barteen iyo dadkan inagu xidhan aynu adeegnay bulshada doorashadeeni dhacday ee madaxweyne Muuse Biixi qabtay aad iyo wax weyn baa laga baranayaa inaga gudaheena wax gaara laga baranayaa waxa isleey inaga dibadeena dadku wax gaar ka baranaya dad isku duuban isjecel wax wada qabsanaya nabadooda ilaashanaya waxa weeyi de wixii horumarkooda ka wada shaqeynaya inaynu nahay bay dadku inaga baranaya oo kalaga guuleystay iyo ka guuleystayba ay ilaalinta qarankooda iyo jacaylka qarankooda way ka sameeyeen inaga gudaheena waxaynu ka baranaynaa waxa weeye inaynu tartamo adag wada galno inaynu ma aragtay ismucaaradno inaynu ismuxaafadno
wixii qaldan iska qabano wixii saxsan isu raacno baynu ka baranaynaayo haddana aynaan colaad dad aanay dhexdeena iman inagoo hadallada kuwooga u kulkulu ku wada hadlaynaa waxa weeye isdhaleecaynana haddana inaynu qarannimadeena ilaashanayno oo dad maaragtay isku duuban aynu nahay isku duuban ka waran maadaama maxaafid ahayd imika waxa tahay mucaaradka cusub jawigaaga ka waran maxaa u dhexeeya bal noo yara cabir noloshuyadaa u baahan maaragtay marba jawi aad gasho xaaladun ku sugnaadaa ma fiicnaba waxa weeye annagu in badan baanu maxaafid hayn in badan baanu maxaafid hayn 2 jeer oo 2 doorasho oo isu xigaba annaga iyo xusbigeegu waxa weeye maxaafid baa hayn waa ku daalay maxaafidnimada marka imika jawiga aanu galay mucaaradnimadu way noo dhadhamayaa waxa weeye saa ula qabsanaysaan bal waxaan ula qabsanaynaa wax badan baanu baranay intii aan xilka haynay marka wixii aan baranay iyo waxaan ku darsanaba laga badi baa la yidhi waxaan mucaaradka ka baranay iyo wax badan oo noo qarsoonba waan waxa weeye hawsheedaanu galaynaa iyagana qolada fiilada waxaan leeyahay xamila baasho adkeysigeeda yeesha bal dadka commentiga idin soo qoraa haddaynu commentigeena TikTok-ta ku laabano qaar badan baa lahaa oo maxaafidka cusub seen u kala baran karnaa madaxtooyada wax ma ka caawinaysaa saaxiibadaada cusub inkastay kaftan iska tahay ninkaas Saleebaan isagu waa la haystaa nin waxa weeye waa ka soo meedhanaysaa waa nin macnuhu riday weeye saaxiibkay baabka waxaan leeyahay madaxtooyada horta markaad gasho adaa iska baranaya laakiin marka u horeysay aad galayso kawala waxa weeye adoo kawala galinu kabaha ka sii bixi markaad gasho iyada iska baraysa madaxtooyadu halka uu wax bilu albaabka ku bixiya kabaha waa halka lagu bixinayaba madaxtooyada waa inaad kabaha ka sii bixisaa gudaha moo gashay xafiis kasta magac baa ku qoran saaxiibkii oo nin wax bartay waan malaynayaa intaa uu ka adeegayaan malaynayaa intaa wixii ka dambeeya uu ka adeegayaan meesha wax lagu duubo halka salaam ma tusaya may salaam ba kula socdan salaam ba ka dhaway baabka ku soo dhaweynay maxaafidka cusub jawigaaga markii hore mucaarad baad ahayd imka maxaafid baad tahay bal shucuurtaada dadka aad la wadaagaya bal ka waran horta Faadimo waxa weeyaan marka hore saad sheegtay mucaarad baan ahaa aad iyo aad haddana maxaafid baan ahay horta maxaafidada koowaad ee aan ku arko waxa weeyaan waa jaam inay dadku adhigaan buuq inay dadku kugu furaan oo baa qof la maxaafidkii baa waa sanadii ka dadka waqti la yarsan qoray qof baa kugu fisgaray oo dadka u tilinayay insha Allah bidilaa karim laakiin waxaan rajaynayaa inaan anagu maxaafidkii hore aanu ka fiicnaano saaxiibkay Yaxyana waxaan leeyahay adigu madaxweynaha bishii u dambeysay baad walaa madaxtooyada gashay anigu baasha waa la bilaabanaya waana la dhamaysanay ayo qolada TikTok da wada ogtahay intii hore lama aqoon xukuumadda la shaqeynaysa ma jirin xukuumadda hore intii hore TikTokers-ka dalma shaqeynay oo dimi madaxtooyada gali jiray laakiin bishii u dambeeyay oo lolo buu galayo kullu waxa baleeyada baasha ku bilow baad ka soo bootay baxay tolay hadii laakiin dib aad maxaafid noqoto markaas si wanaagsan ka sheekan doonto baasha qorshayaasha leedahay waayahay su-aasha adaa ku haysta oo mikrofoonka gacantaada ku jira maadaama oo aad tihiin TikTokers magaca TikTokers ay wadaagtaan cidda doontaan aad kala raacdeen cidda doontana ha kala guulaysato saaxiibtinimadiinii sidee u saameysay niyo horta waxa weeyaan baasha maxaafidkii mucaaradka ama ololaha dad baa khalad fahmaa yaaliga imka Yaxya oo kalkan fadhiyo saaxiibkay habeen walba isarkiinay oo wada sheekaysanay marka horena siyaasaddu Allah isimaha wuxuu baa loo kala duway fikir ahaan baa loo kala duway oo fikrad kaga dhaxar go'dan baad kaga dhaxar kasaa ku raacayso adigu ka raacayso oo maxay ay tole wax dagaal ama de wax oraada oo meesha taalaadee ma jirto ma jiraan aadiya ma jiraan aadiya daniyo marka anu waxaan qabaa inaanay wax maxay ay tolay saameyn aan ku keenay saacadood dhalinyarada saaxiibada bulshada maxaad u sheegaysaa marka yani inagu xidhan bulshada waxa uu sheegayaa baasha marka inta mawlada la soo duubayo oo la kala maqay ama inta siyaasiyiintu wax soo akhriyaan oo baasha iyo maxay ay inta kala meelaha lagu shahayn inta kala meelaha lagu siyaasiyiintu ma ku shaqeynay TikTokers saaxiibada TikTokers kana wax oran lahaa horta de anagu maanta siyaasiyiin mini aadiya oo maanta duu xisbiga wadan halka qabsay aniga siyaasi ma anigu waxa loo doonay wasiiro doonay de agaasimo doonay de anigu TikToker baan kula socod siyaasiyan kula ma socon
waxaan leeyahay inaad madaxda aflagaadaysaan oo wax muhiim in laga dheeraado waay oo waa dhalinyarnimada ama mustaqbalkaaga dambe ayay damage ku keeni kartaa waay ama inaad reer caydo aad iyo oo qof shakhsi aad reer ugu gufto aad iyo waa taa reerkaas waa saay reerkaas waa sidaa aad iyo ama in qof xil haya reer markiiba loogu magac daro waayo imaka sheekh dir iyo nin wasiiro xun baa meel ka wada dhalan kara soo ma aad iyo haddaad reerkiis ku wada qaado ka horreed qofka wasiirka wada qaato waa mushkilad waa mushkilad weyn aad iyo ama dee adugu dee culimada waaweyn baa mid doomed meel kala dhaga reer markaa qofka qof wanaagsan yahay sheekh mustafa irra imaka hadday doonaan irra xamaanayo hadii lagu wada qaado waa meesha waay waa mushkilad weyn waxaan oran lahaa qabyaaladan ha laga fogaado in ay ku cid caydaan ama siyaas ha noqdo ama reer ha noqoto waxaasina yaan idii gelin taariikhda waayo dee mustaqbal dambe leena inagu ifay wadii saad aragto kale yaxyo imaka isagoo malaa biro rax badaritin mooyaan naga soo guuxna imaka aad iyo aad salaamaanow barnaamijkan iska soo gabagabeynayna aad baadna u mahadsantihiin run ahaantii wuxuu ahaa barnaamij adigu isxog waraysiya unbaa la odhan karaa dadkana waxaynu dhexdooda ka saaraynaa dadkan aynu la hadallo waxay moodayaan yacni kala safnaashaan in meeshii lagu kala tegay laakiin dadku waa dad asxaaba oo saaxiiba qarannimadeena in la ilaaliyo weeye muhiimaddu bal bulshada ku daawatay kugu xidhan maxaad leedahay horta aad iyo aad baan salaamay bulshada horta mid baa jirtaa dadku waxay u yaqaanaan marka siyaasiyiintu hadlayaan ama marka tiktokar isku duubayaan in ay dadkana ay coloobayaan ay kala tegayaan waay annagu raggan saaxiibaan nahay mar kastana oo wada joogi jirna annagoo kala xusbiya iyo annagoo isku xusbiyaba maalintii intaan soo shaqayno ayaan habeenka wada soo joogi jirnay laakiin waxaa jira qaar adigu ma garanaysaa aytamo oo aan tiktokarada waaweyn ka mid ahayn laakiin dadka caaya kuwa weeye kuwa iscaayadee aad iyo aad hawshada sidoo kale waxaa jira wasiiro wax caaya wasiirada wax caayana ma wada hadlaan labada xusbiba waa lagu arkaa xaggan iyo xagganba waa lagu arkaa wasiiro wax caaya agaasimo wax caaya xildhibaan wax caaya markaa kuwaasi laakiin anigu waxaan aaminsanahay oo aan indhahayga ku arkay inta wanaagsan muuse biixi iyo ciro inay saaxiib yihiin mar walba wada joogaan inta ka hooseysa wasiirada intaas inay saaxiib yihiin wada joogaan dadku deynaan meel ku kala tegay dadku waa dadkii de waana dawladii waana duriyadii markaa sidaa uu saaxiibkay sheegay horta in cid la caayo ama cid la aflagaadeeyo shakhsi ahaantaada ama weyno ama yaroo shakhsi ahaantaada uma fiicna wax meesha yaalla waa xifaaltan waa doorasho inaad sideeda uga soo baxdo ayuun weeye dee saaxiibtinimaduna ma aha wax ama ku buraya ama doorasho ama waxaas wax yeeli karayaan annagu tiktokersku marka horeba dadka way iska xigaan youtuberski waxa way iska xigaan haddii ay ciyaaro noqoto haddii ay aweysi noqoto wax walba anagu isu yaadha naga isla hadlaan qof walba dadka xamar jooga kuwa nairobi jooga kuwa garowe jooga tiktokerska way wada xidhiidhaan haddii macalaadi aragtida qaar leef soo gelaya iscaayaya way isbalansadeen imanka maanta anuu leef haddaan soo galo oo adigu aanan leef kii soo gelin xagaan kaa soo qabanaya haddaan u leef soo galo adna leef soo gashay xagaan kaa soo qabanaya inay isu falow garasnayn xintaa kuwa iscaaya maanta tiktok leef ku jira waa saaxiibo is ogyihin hadhow intay soo wacaan baa intaad ka qabatay intaa anna intaa marka xilana shacabka waka ku qaflay runta shacabku way isku disheen ma la oran karaa reer community waxa meesha ku dhimanaya tiktokeradu waxay u dhaqmaan habkay siyaasiyiintu u dhaqmi jirtay waxa meesha ku dhimanaya waa bulshada waa maatiya caruur ciyaalka yar iyo dumarka ragga waaweyn waxa way fahansan marka kuwana waxaan leenahay hubka dhiga dadkana waa dad saaxiib ah sida ay dadkana saaxiibada yihiin kuwiina iscaaya iyo community iska caaya idunkana saaxiibo noqdo aad iyo aad si wuxuu lagu hagaagaan waayay Tiger baan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waan ku faraxsanahay in waqti noocan oo kale halka ku wada qaadano bulshadana in la wadaagno wixii xog ah marka iyaguna ka dhiman adiguna walaal maxaad raacinaysaa bal waxyaabihi aad ka baratay intii aad safarada meelaha tageysana adigoo noo soo yara koobay yacni haddii wax qasaay aad soo aragtay haddii wax farxad leh haddii wax kaan xiyaa aragtay bal berihii kugu dambeysay maxaafidnimada ugu dambeysay maxaad ka xasataa qodobka hore waxa weeye asxaabta aan tiktok wada isticmaalay ragga ka mid yahay saameyn ma idinku yeeshay campaign-kan iyo ma kala go'day aad iyo aad horta raggan anagu campaign-ka iskuma baran campaign-ka hortiina waa shaqoon aad iyo rag badan oo aan u ololaynay labadoodu iyaguna ay ololaynay waxa laga yaabaa anagu shaga dhownahay oo waxa weeye aan mar walba wada joogno wada shaahayno
ninka marba xaalad kusoo kordhayn maaragtay raggu ay sheer gareeyaan waa marka wixii fikir iyo taageernimo ba lagu kala duwanaayay tii saaxiibtinimo iyo walaalkeed aad iyo aad raggu kuma kala tegin aad iyo aad habeen walba anagoo safarada ka nimid halkaas isugu yimaadno wada shaahin waa suuraysaneen marka iyaguna waa la cuni jiray lacagta ka soo qaada wadani iyaguna way la cuni jireen marka waa gaashaan buur weeye dadka ragalka dee maaragtay iska taaganahay weeyi wax saameyn oo nagu yeeshayna safarada iyo wixii aan kala soo kulannay wallaahi dee rag iska daayar baanu nahayo waan boodayna may rag daayar baanu waxa weeye dalka meelo badan baan na arag waa oo waxa weeye caasimadahan aanan dhaafin baa laga yaabaa berbere hargeysa burco intaan u dhaxayno waa meelo badan baanu soo baranay waa fursadaas waa fursad gaar oo meelo badan hadda annaga soo marnay oo dee annaga ka sheekayna ma hayno looma sheekayn karo aad iyo waxaa kaloo iyaduna jirta oo dadkana aan u sheegaynaa deegaanada ay tegayeen labada xusbiba mucaaradka iyo muxaafadku aad iyo dadkeenu inay dad soo dhaweyn leeyihiin oo shalay waxaa laga yaabaa inay intay mucaaradku meel tagaan anagu aan kaga dambeynay aad iyo marba waxa weeye kaayaga dambeeya sidii kii hore loo soo dhaweysay quruxda loo soo dhaweynay aad iyo marka dadkeena dad bisi lahoo wanaagsan soo dhaweyn lahaa oo siyaasadii fahmay weeye waa saaxiib beelintaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan kooban ay nagala qayb galeen tiimka tiktokeriska yaxya taygar baabka burco salamaan dheere guud ahaantiiba saaxiibeele aad iyo aad baan idigu mahad celinayaa maaha waa markii koowaad ee tiimkan ay kasoo muuqdaan youtube-kayga waxaan rajaynayaa marar kale oo badan inaad kusoo noqon doontaan oo ay tahay meeshiini tan iyo inta isugu iman doono boorogaraamka xiga alxamdulillahi saas iyo nabadgelyo